ميدك اسبيدال ديكفيرو يا لا أو كجرا حتى وأنا حقيقة سكرتي لك بسايو هذا الميدكيga ninkii dilay dawlad ee gacantiga soo saaray firijeerkaas oo ku jira ehelada allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Ibraahim oo ah wiil uu dilay askari ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliyeed isagoo hor fadhiyay iridda gurigooda oo ku yaala xaafadda Sheekh Yuusuf Alkoonen ee degmada Boondere oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aan wili la aasin meydka wiilkooda isla markaana uu meydka wiilka ku jiro firinjeer kulankan oo ay isugu yimaadeen waxgaradka dhalinyarada aqoonyahanka iyo nabadoonada beesha Mobilen ayaa dadkii ka hadlay madasha waxa ay sheegeen in meedka wiilkooda aan la duugi doonin ilaa iyo inta uu ka helay cadaaladda iyagoona sheegay in si xur ah uu magaalada dhexdeeda ku maray askarigii dilka u geystay wiilkooda anaga dad la dhayarsada milii Mobilen ahay Soomaali iska dhaafay amxara meel saari macaadalay waaxid aniga ila dhasho walaalkee oo diiday in gacanteedu u qaado yaan la igu kalifin xukuumadda dawladda haddii dawlad noo tahay saashali dawlad noogu heleen hadda noogu diin wax noo qabta waa leedili xaq miya ilaahan kugu dhaarshi madaxweynow ilaahan kugu dhaarshi ra'iisul wasaare Roble Rono ilaahay aku waafiji kursigaas ku fadhiisiyay magaceedana ku fadhida cabashaana ay mudane ra'iisul wasaare cabashaanahay waa noo la dilaa ninkana dilana wuxuu galaa kaaraan wuxuu ka sii galaa jarnaal sile iyo meelaha seetiyo galaa waa 27 waxa dadka dilaayo ay Boondere iyo Bilaajo waxa rabaa dawladda in dhayeelato noolaga qabto meedka isbitaal digfeero yaala oo ku jira hadda waana xaqiiq sakartii ninka beesaayo hadda meedkayga ninkii dilay dawlad ee gacantiga soo saaray firijeerkaas oo ku jira maamulka gobolka Banaadir waxa lagu dilay wiilka degmada Boondere xaafadda Yuusuf Kownen ayaa lagu dilay wiilkayna Cabdiraxmaan Cumar Ibraahim Xaaji 10kii bisha oo hadda noogu dambeysay ayay ahayd maanta 13 ay joogtaa cid noo timaaday oo ilaa iyo hadda ka oo macna arintayna waa la og yahay waxay jiraan ahay wixii maamulka degmada waa og yahay cabashadayna waa og yahay reportka ayaga hayana booliiski taliyaha saldhigga gacanta ku haayo magaciisa la haya mas'uulkiisa la haya ilaa ay haddana wax laga qabtay ma jirto marka hadda waxaan rabaa inuu hadalkayna gaaro ee Soomaali ay maqasho gudaha iyo dibadda wixii joogo ninkii abdigiisa door lahaay markuu dilo cid maanta loo cawahay ma jirto saldhiggan waxba kama qabanin nin walibana waxa la leeyahay waa tagay oo wuxuu galay gubadleena ma aha Ethiopia dawlad kale ma joogta laakiin waayo in wax laga qabto lama rabo waayo